Ra'iisul Wasaaraha Dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha oo ka dhoofay magaalada Nairobi ayaa waxa uu dhawaanahan booqashooyin ku marayay qaar ka mid ah wadamada Carabta oo ay ka mid ahaayeen dalka Qatar iyo dalka Kuwait isagoo muddo 2 casho ku sugnaa magaalada Nairobi kulamana la qaatay qaar ka mid ah wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya. warbixin amurtan ku saabsan waxa magaalada Muqdisho naga soo diray Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku maqnaa safarro dhanka dibadda ah oo uu ku tagay wadamada Kuwait iyo Qatar ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya. waxaana ra'iisul wasaaraha iyo xubnihii la socday gudaha garoonka si weyn ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka kala socday labada gole ee dawladda ku meel gaarka Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir, ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, fanaaniin iyo dad aad u fara badan oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. soo dhaweynta kadib ayaa ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Cali shir jiraa'id uu ku qabtay gudaha garoonka waxa uu kaga warbixiyay kulamadii uu la soo qaatay madaxda wadamadii uu safarada ku tagay. waxaana uu xusay ra'iisul wasaaraha in isafgarad ay ku soo dhamaadeen dhammaan arrimihii ay ka wada hadleen madaxda wadamadii uu safarada ku tagay oo ku aadan xiriirka dawladahaasi iyo arrimaha wadanka Soomaaliya. أجمعنا تسمية كذا لو وصل وصل قدر يوم في الكويت لو وصل بعد فاني ما أعرف رحني لو وصلنا نوتري توصل الله يفرز لو وصل دلك الصومالي دلك الكويت كذا دلك الكويت كذا كنا هذا الكيدي أكثر بخصوص الماضي نقول هلا يصير كرير كاس لو كلها سيدي الصومالي أوراق السعودية متأكد إن هذه مثلا نقطة حتى مرة أما حتى الوشيسين تا حدا البوليس هذا قلت إن أي كان كجنسان هذا نقول هاي رئيس الوزراء عبدولي ومر wax laga weydiiyay arrimaha ciidamada Kenya ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in ay soo dhaweynayaan in ciidamada Kenya ay ka mid noqdaan ciidamada midowga Afrika. Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, Muqdisho. Hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa waxa ay bayaan ka soo saareen dilkii magaalada Boosaaso loogu geystay Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan Allah u naxariistay. culimada Soomaaliyeed sidoo kale waxa ay ka hadleen shir dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. waxa warbixinta naga soo dirtay magaalada Muqdisho Nimco Maxamed Bashiir oo halkaasi naga soo waranta. mas'uuliyiinta ugu sareysa hay'adda culimada Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay kaga hadleen xaaladaha uu dalku marayo iyo isbedelada siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya. gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo warbaahinta u akhriyay bayaanka ay soo saareen ayaa ugu horeyn tacsi u diray eheladii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo kooxo hubaysani ay maalmo ka hor ku dileen magaalada Boosaaso. wuxuuna gudoomiyuhu xusay in dilka Sheekh Axmed uu hordhac u yahay olole lagu curiyaaminayo ummadda Soomaaliyeed oo ay wado xarakada Al-Shabaab sida uu hadalka u yiri. isagoona shiiqu marin habaabin ku tilmaamay shirkii dhawaan ay xarakada Al-Shabaab ku yeelatay magaalada Baydhabo. wuxuuna ugu dambeyntii gudoomiyuhu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay iska kaashadaan ilaalinta diintooda oo uu sheegay in ay jiraan shakhsiyaad si qaldan u adeegsada. bayaanka hay'adda culimada Soomaaliyeed ee ku aadan dilkii Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan rahimahullahu ta'ala. hay'adda culimada Soomaaliyeed ayadoo eegaysa xaaladda dalku marayo isbedelada ka dhacaya iyo dhacdooyinka cusub oo ay ka mid tahay dilkii loo geystay Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan rahimahullahu ta'ala ayaa soo jeedinaysa qodobada. hay'adda culimada Soomaaliyeed waxay u tacsiyanaysaa dhammaan ummadda muslimka ah gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed waxayna si gaar ah tacsiyo ku diraysaa dhammaan eheladii qaraabadii saaxiibadii Dr. Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan uu ka geeriyooday
oo dil loogu geystay ay dil u geysteen koox diinta iyo dalkaba cadow ku ah waxayna ilaahay uga baryaysaa inuu uga dhigo dilkaas shahaado uuna geliyo jannadiisa firdowso waxaana leenahay allahuma اغfir lahu warxamhu waakrim nuzulahu wawasic mudkhalahu allahuma arfac darajatahu fi lmahdiyiin واخلفه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وحنا دمان اهلديسي وقبل ان الله سبحانه وتعالى صبر ايمان امين امين وماليات ودل يا بركه جوجته lagu hayo ayna ku hayaan kooxaha marin habaabay oo ku raaxaysanaya dibka ummadda muslimka sidoo kale waxaan ka tacsiyeenaynaa dabkii ka kacay magaalada boosaaso oo lagu waayay hanti fara badan waxaan dadku weydiinaynaa ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu bedel khayr qabo ka siiyo saddex waxaan u aragnaa dilka sheekha inuu calaamad u yahay xawaare cusub oo si xawli ah ugu soo fiiray ololihii cuuriyaaminta ummadda Soomaaliyeed ahaa oo in muddo soo socday ololahaas ay wadeen kooxda shabaab arrinkaas oo lagu go'aamiyey shirkii ka dhacay magaalada Baydhabo oo dulucdiisu ahayd in la beegsado culimada Soomaaliyeed afar beegsiga culimada Soomaaliyeed wuxuu muujinayaa kaalinta ay culimadu kaga jirto difaacidda diinta iyo u danqashada ummadda Soomaaliyeed waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala ikhlaas iyo sugnaasho iyo inuu ummadda dhammaanteed badbaadiyo Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ah gudoomiye ku-xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed oo isna ka hadlay kulankan ay culimada Soomaaliyeed kaga hadlayeen xaaladaha ka jira dalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in ujeedada xarakada al-shabaab ay tahay in la laayo waxgaradka si aan loo kala saarin xaqa iyo baadilka sida uu sheekhu hadalka u dhigay waynu aragnaa Dr. Axmed Cabdiraxmaan oo kale in la dilay muddooyinkii aan soo dhaafnayna dad badan oo ama cuqaasha ummadda ah ama culumo ah indheergarad ah in la beegsan jiray fakarkaas fakar Soomaaliyeed ma aha waa arrin la soo waariday ujeeddada ka dambaysaana waxaa weeye ummadda in laga laayo waxgaradka wax danqada oo arrimiyo si loo waayo oo markaa wax kasta oo la doono laga sameeyo shabaab arrintaasay aaminsan yihiin in culummada la laayo si xaqa iyo baadilkaba loo kala garan waayo ayagu fasaadkay wadaana loo garan waayo dadkii waxgaradka ahaa ee ummadda dhihi lahaa war ha la tashado ayagana way khaarijiyaan hadaf bayna u tahay arrintaas waa hore ay nagu bilaabeen bal hadda waxaad eegtaan imise qof baa la dilay oo waxgarad ah yacni iska dil ma aha hamoodina wax iska dhacayo un waa barnaamij habaysan oo qorshaysan si ay u sii joogaan oo u fidiyaan afkaartooda khaldan intii wax garanaysay oo dhan inay khaarijiyaan waxaan ku talin lahaa waxani waa taariikh waana laga bixi dhibka Soomaalidu wax ma qorto in la qoro dhibaatada la dhacaysa ee la samaynayo dadka la laynayo cadadkooda magacyadooda si ayna taariikhdaasi u lumin dadka la xasuuqayo ama hoobiyaha ku dileen waxaynu ognahay inay hoobiye iska soo tuuri jireen oo hal mar intaasoo qof ay dhiman jirtay maanta waxaa dhimatay 20 30 baa dhaawacantay haddaan ma sidaasoo looga tagaa dadna si gaara ayay u bartilmaameedsadaan ayagoo weliba nasiib darradooda masaajidda iridooda ku beegsanaya waa masaajiddu meeshii lagu garan lahaa qofkani inuu yahay qof muslim oo dhiiggiisii iyo xoolihiisuba ay xaaraam yihiin oo la taaban karin meeshii bay ku ugaarsanayaan
bayaankan ka soo baxay hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa imaanaya xilli ay soo tarayaan cambaaraynta kala duwan ee ka imaanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed taas oo ku wajahan dilkii Allah u naxariistay Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo maalmo ka hor kooxaha hubaysani ay ku dileen magaalada Boosaaso. Nimco Maxamed Bashiir, Somali Channel, magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah culimada diin dhawaan lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkii Allah u naxariistay Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan ayaa waxay shir jaraa'id ku qabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. culimada diinkan ayaa waxay beeniyeen inay gabi ahaanba ay ku lug lahaayeen dilkii loo geystay Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan iyagoo markaasina tacsi u diray qoyskii iyo waliba eheladii uu ka geeriyooday. waxaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha iyaga halkaasi nooga soo warama Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaak. kadib dilkii Allah u naxariistay Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo dhawaan kooxaha hubaysan ay ku dileen magaalada Boosaaso ayaa maamulka Puntland waxa uu dilkaasi mas'uuliyadiisa ku eedeeyay qaar kamid ah culimo ku sugnaa qaybo kamid ah koonfurta Soomaaliya oo dhawaan shir kaga qayb galay magaalada Baydhabo iyadoona maamulka uu carabaabay magacyada qaar kamid ah culimadaasi Sheekh Xasan Maxamuud Takar, Sheekh Cabdulqaadir Muumin iyo waliba Sheekh Maxamed Ismaaciil oo kamid ah culimada lagu eedeeyay mas'uuliyadda dilkaasi oo shir jaraa'id wadajir u qabtay ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedayntaasi iyagoona tacsi u diray eheladii iyo ummadii Soomaaliyeed uu ka geeriyooday Allah u naxariistay Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan isla markaana sheegay in kulankani ay dhawaan kaga qayb galeen magaalada Baydhabo aysan jirin wax go'aan ah oo lagu waxyeeleynayo ruux bini'aadana oo lagu gaaray ama goobtaasi ka soo baxay. waa kuwan qaar kamid ah culimada oo arintaasi ka hadlaysa. annagu haba yaraatay cid hal dilo anu maan oran shirkana laguma oran ahad yirina ma jirin qorshaha shirkuna kuma jirin fatwa in la soo saaro dad la laayo ama ashxaas ha noqdaan ama jamaaca noqdaan ma ay jirin. ama dilka Sheekh Axmed Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan anugu horta wixii dilay ma ogi Allah wayna waahidka og cilmi ghaybkana leh horta ma isqabanayso aniga yani Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo la dilay oo jooga Boosaaso Xasan Maxamuud Takar oo jooga salka u dambeeya koonfur Soomaaliya hadaa la ku imaayo oo isku qaraabo yihiin ayaa dilay isqaban mayso. arintaasi waa arin aan isqaban karin waa arin aqligeena ka fog weeya istiqdaamkaas ay istiqdaamseen dadku aqligooda leeyihiin maskaxdooda leeyihiin waana u jeedaan waxa meesha ka jira waa u jeedaan. annagu waxa weeyaan Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan anu waa u tacsiyay koodii horena Sheekh Axmed sidoo sheegay Sheekh Cabdulqaadir hadee baa nooga wakiil oo tacsiyay aniguna markii horeba waan tacsiyay. Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan reerkii uu ka geeriyooday iyo dhammaan dadka dalabatul cilmiga ah khaasatan kuwii ku taxnaayo si gaar ah wax uga baran jiray iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan aan uga tacsiyeynaa marka u horeysa. culimadaasuna waxa weeye shaqooyin bay ku kala maqan yihiin oo hadda halkan ma joogaan ilaa in yar maahin saasan marka wakaalada iyagu wakaaladaas ay soo farteen oo saas ayaan uga hadlayaa. midda kale waxaan rabaa inaan ka hadlo mu'tamarkaas isaguna asaan idin sheegay arrinka lala xiriiriyay oo leeyahay halka ayaa mu'amaro looga soo go'aamiyay dilka sheekhaas. waxaan leenahay mu'tamarkaas waxaa ka soo qayb galay dad ilaa 100 gaaraya ayaa ka soo qayb galay 100 culimo ah. 100ka culimada ay waxay ka tirsanaayeen tayaaraadka ama noocyada culimada oo dhan ay ka tirsanaayeen ama xarakaadka jira maantay saaxada ka jira ay ka tirsanaayeen. marka waxaan leenahay marka u horeysa 100 qof oo telefoonadoodu u furan yihiin oo xor ah oo ka kala tirsan tayaaraadka ma garanaysaa ka jira wadanka ka jira suurtagal maaha inay ku heshiiyaan inay qof muslima in la dilo inay ku heshiiyaan suurtagal maaha. marka ugu horeysa waxaan isweydiinaynaa Axmed Xaaji Cabdiraxmaan Maxamed raxmatullaahi calayhi raxma waasica yaa laga dilay yaa sadilay. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan Maxamed oo annaga xabiibkayagii ahaa ustaadkayagii jaamacadda ahaa daacigayagii ahaa sheekhayagii ahaa walaalkayagii ahaa kalsooni weyn aanu ku qabnay wanaaggiisa aanu niqin diintiisa aanu niqin annagaana la ka dilay.
dilka allah u naxariistay Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo ahaa nin si aad ugu weyn bulshada Soomaaliyeed ayaa waxa siyaabo kala duwan uga hadlay culimada, siyaasiyiinta, waxgaradka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshooyinka Soomaaliyeed. Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Balaag, Somali Channel, magaalada Muqdisho. wasiirka dastuurka iyo arrimaha dib u heshiisiinta dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxa uu magaalada Nairobi casho sharaf ugu sameeyay qaar ka mid ah guddiga dastuur sameynta Soomaaliya. casho sharaftaasi ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo waliba wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Agostino Mihigo. sidoo kale waxa kulankaasi ka soo qayb galay safaarado wadamada Yurub ay ku leeyihiin magaalada Nairobi. Ibrahim Maxamuud Jaamac oo kulankaasi ka qayb galay ayaa warbixinta noo diyaariyay. kulan casho sharaf oo ka dhacay magaalada Nairobi ayaa xalay loo qabtay khubaro loo saaray diyaarinta dastuurka qabyo qoraalka ah si dib u eegis loogu sameeyo. xafladan waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Gaas oo qaybsanaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Dr. Agostino Mihigo, wasiirka dastuurka oo hogaaminaya khubarada loo saaray dastuurka. sidoo kale waxa cashar sharaftan joogay safiiro badan oo ka kala socda beesha caalamka iyo waliba qaramada midoobay. waxa ugu horeyn ka warbixiyay kulanka munaasabada cashar sharafta loo sameeyay khubaradan wasiirka dastuurka Soomaaliya sheegayna halka ay wax u marayaan taas oo mar dhow la dhaqan geli doono dastuurka cusub. shirkan waxa looga lahaa in Prime Ministerka iyo madaxda inay arkaan guddiga khubarada oo loo soo xulay inay dastuurka soo shaqeeyaan. waxaa usoo dhammaaday maanta training ama waxbarasho oo ay falanqeynayeen dastuurka qabyo qoraalka ah. markuu usoo dhammaadayna waxay ku soo aadeen iyadoo Prime Ministerka magaalada joogo. marka waxaan go'aansanay inaan casho u sameyno iyaga iyo Prime Ministerka iyo caalamka adduunka ambassadorada ka socdo iyo UN-ka iyo Soomaalida degan magaalada Nairobi inaan u soo bandhigno guddigii iyo magacyadoodii iyo background-gooda meesha ka yimaadeen. waxaa lagu soo qaaday waxay ahayd message-ka Prime Ministerka wuxuu ahaa in road map-kii loo dhiibay saad u ogeedeen 4 qayb u ahaa. qayb ka mid ah waxay tahay waa midaan dastuurka la dhameystiro. arrintii baanan ay tan ku salaysan tahay. road map-ku wuxuu leeyahay waa in la helaa guddi khubaro ah oo qaada draftiga constitutionka dastuurka inta qaada ummadda dhexgeeya soo falanqeeya markuu ugu dambeysana soo saara dastuur soo dhammaaday oo hadhow loo gudbin karo in la ansixiyo. marka maanta waxay aad ay importante ugu ahayd waxa waaye guddigan khubarada ah ayaa waxay bilaabayaan hawshoodii waxayna ka bilaabayaan 15 bisha December Garowe shirka ugu horeeya ka dhacay oo dastuurka wixii ka dambeeyana Janaayo waxa dhacayo mid kale oo ka dhacaya Xamar. kabacdina waxaan rajaynaynaa in magaalooyin badan kale in dastuurka la geeyo xataa lagu daro meelaha aan isleenahay in la xoreyn doono mar dhow. marka waxaa kaloo Prime Ministerka la dardaarmay beesha caalamka uu xasuusiyey inay ballan qaadeen inay dhaqaale u keenaan howlaha road map-ka looga shaqeynayo ha noqdaan xagga amniga ama dib u heshiisiinta ama dastuurka. wuxuuna xasuusiyey inay hadda habboon tahay inay bilaabaan dhaqaale inay soo daayaan. Ambassador Mihigo wuxuu kaloo yiri waxay ahayd wuxuu xasuusiyey ummadda ama dadkii meesha isugu yimid inuu ku faraxsan yahay in dawladdu ay waxyaalihii laga rabay ay soo dhammaystirtay xagga road map-ka weliba dhinaca dastuurka oo hadda qabyo aysan jirin. uuna ku faraxsan yahay in mar dhow bilaabanayo shirkan Garowe oo ay tahay inay ka soo baxaan waxyaalo badan oo wax ku ool inay ka soo baxaan oo gobol xar u noqon doono sidii loo dhammaystiri lahaa ku meel gaarnimada hadda jirta. safiirada yimid waxay ka mid ahaayeen United Nationka waxaa yimid safaaradda Norway
oo iyadu ballan qaaday inay shirka garoowe kharashkiisa bixinayso safaaradda Mareykanka safaaradda Sweden safaaradda Talyaaniga waxaa kaloo yimid khubaro kaleeto oo ka mid yahay nin Hindi oo Kenyaana oo khabiir xagga dastuurka ku ah oo ka soo shaqeeyay dastuurkii Kenya loo sameeyay dhawaan ninkii qaybta weyn ka qaatay ahaasna waa joogay dastuurkan qabyo qoraalka ayaa lagu wadaa in kulamo la tashiya lagala yeesho guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyadoo lagu wado in kulanka ugu horeeya uu ka dhici doono xarunta Puntland ee Garowe iyo waliba qaybo kala duwan oo kamid ah gudaha Soomaaliya taas oo macnaheedu yahay si loo soo bandhigo in dastuurkan uu yahay mid ay ummadda Soomaaliyeed ku wada qanacsan tahay. Ibrahim Maxamuud Jaamac, Somali Channel, Nairobi. faahfaahin dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxaysaa 6 qof oo burcadbadeed Soomaaliyeed ay ku haystaan deegaano kamid ah gobolkaasi Mudug. 6daasi qof ayaa waxa lagu soo waramayaa in xaaladooda caafimaad ay aad u liidato isla markaasna dhibaatooyin badan ay halkaasi ku soo wajaheen. Axmed Khaliif Geedi ayaa warbixintan naga soo diray magaalada Gaalkacyo. 6 qof oo kala dhashay wadamada Denmark iyo Philippines ayaa kooxaha burcadbadeedda Soomaalida waxa ay ku haystaan dhulka miyiga ah ee gobolka Mudug. Lahaystayaashan ayaa waxa ay burcadbadeeddu kala soo degeen markabka Leopard kadib markii burcadbadeeddu ay ku weerareen markabkaas badweynta India 12 January sanadan 2001 xornimo la'aan caafimaadkooda oo liita cabsi fara badan iyo cunno yari intuba waxa ay ka mid yihiin dhibaatooyinka ugu xoogan ee haysta lahaystayaashan u kala dhashay wadamada Denmark iyo Philippines. goobta ay ku nool yihiin lahaystayaashan ayaa ah dhul cimiladiisu ay aad u kulushahay isla markaana ay dhirtu ku yar tahay waxaana isbedelka cimiladu ay wax weyn ka bedeshay caafimaadka lahaystayaashan. Iidi Lobas oo ah kabtanka markabka ay burcadbadeeddu kala soo degeen 6 qof ayaa sharaxaad ka bixinaya qaabka loo qabtay iyaga iyo markabka ay wateen iyo sida uu ahaa dareenkiisa xilligii la keenayay dhulka miyiga ah ee gobolka Mudug. My name is Eddie Lopez. I am from Denmark. magacaygu waa Iidi Lobas waxaan u dhashay wadanka Denmark waxaan u shaqeeyaa company lagu magacaabo Shipcraft oo laga leeyahay Denmark. si kadis ah ayaa kooxo burcad ah waxa ay ku soo fuuleen markabkeena inaga oo aan ka warqabin. When they catch you? We was cast the 12th of January this year. Where they catch you? dhinaca kalena Sorin Lindbjorn oo isna ah madaxii shaqaalaha ee markabkaas ayaa waxa uu ka waramayaa nolosha ay ku nool yihiin hadda isaga iyo saaxiibadiis. My name is Søren Lyngbjørn. From where? I'm Danish. I'm from Denmark, born in Denmark. And I was a chief mate on board motor vessel Leopard, a Danish ship. And I'm chief mate, so I have a sea watch navigation of the ship, and also some of my jobs is also to take care. For the last about 3 months, he's sitting here, as the captain told, and he is scared all the time and cannot sleep and so on because I don't think I live for a month more. So the Danish government, please help us before we die, please. And tell the government, you tell the company to pay so we can get home, please. So. afayeen u hadlay kooxda burcad ah ee haysata 6 qof sheegayna inay yihiin dhalinta xeebaha dalka Soomaaliya magaciisana ku soo gaabiyay Axmed Meegaag ayaa ku eedeeyay lahaystayaashan iyo markabkii ay la socdeen in xeebaha Soomaaliya ay ku daadinayeen haamo sumaysan uuna waday markabku hub sharci darro ah sida uu hadalka u dhigay Axmed Meegaag waxaana afayeen Meegaag uu sheegay in dadkan ay ku doonayaan lacag madax furasho ah taasi oo gaaraysa 15 milyan oo dollarka Mareykanka. nimankaana waxa soo qabtay ciidamada dhalinta xeebaha Soomaaliya soo qabatay waxayna ka soo qabteen badda Hindiya bay ka soo qabteen iyo sun iyo qashin iyo diyaar ku daadinaya annagu xeebaha Soomaaliya bay u waadiyeenaa
waxaan u waardiyeynaa dad masaakiina oo kalluumaysatada aan ahaa jiray kalluunkii iyo libaaxii iyo khayraadkii badda oo dhan oo baqbaqtii iyo xeebta ka jacaayey haddii sun lagu shubay sida awgeed baa annagu wixii xeebta Soomaaliya iyo wixii aan ka kalluumaysan jiray iyo meeshaan annagu ka shaqaysan jirnay asgambiyey oo haddii la kuma sunta ku shubay baan inaan ka waardiyeysano baan annagu isku xil saarnay sida awgeed baan u soo qabanay waxaa markaasi eedeeya ama markaasi saxaafadda inta badan ba warbixinada lagu qorayo dadkan marka laga hadlayo ay sheegaan in kooxaha la sheegay inay yihiin go'aabadeed ay gacanta ku hayaan muwaadiniintan isla markaasina hadda meelo kala duwan ay geeyaan oo dhulka bariga Soomaaliya arrimahaas maxaa ka jira walaal arrimahaas waxba kama jiraan waa warfursa waana been weeye annagu waxaan nahay muwaadiniinta xeebaha Soomaaliya waardiyeysata baan nahay dantaana nagu kalaftay badeennii iyo khayraadkii aan ka shaqaysan jirnay oo dhan baa la xumeeyey oo sun lagu shubay oo daawo lagu shubay oo hub lagu shubay oo aayad lagu soo qashinka lagu soo fugeeyey hay marka hadda waxa ugu dambeysay oo xaqiiqadeeda ah haysan ciidamada Denmark baa waxay ku duqeeyeen meesha aan joogno laashash iyo doon iyo dad maxas oo joogay oo ku laayeen oo xaqiiqadeeda inaad ama maqasheen ama aad idaacadaha ka dhageysateen ay u dhow yahay annagu nimankan waxaan ku haysanaa lacag ganaaxa oo 15 milyan baa laga rabaa oo ganaaxa oo aan baryo ahayn cidna aan laga baryo kabanina aan laga baryeyn baa laga rabaa waa markii asxaanka aan u falno oo dhibaatada aan soo maray dhibaatada noo geysteen iyo dadka naga laayeen intaba aan anoo eegin ganaaxa kaliya aan ka rabno iyo qofkii dadkan xanuun iyo fakar iyo ka hayo ama ka maqan yihiin 15 milyan oo lacag baan ka rabnaa 15 milyan oo shilin Soomaaliya ma hooda 15 milyan oo dollarka Mareykanka ah haddii markaasi la waayo lacagtaasi aadka u fara badan oo aad dalbateen tilaabo aan ka ayad qaadaysaa tilaabada aan qaadayna markaas annaga noo taala laakiin waxaan idin sheegnay sidaas baan macnaha lacagta aan ka rabnay iyo ganax aan ka rabno ay tahay haddii la waayana iyagana la waabay la tahay kooxaha burcadbadeeda ah ayaa waxa ay rasaas ku fureen qaybta laga hago markabka ay kala soo degeen 60 qof kadib markii shaqaalihii saarnaa markabkaasi ay isku xireen qolka badbaadada waxaana rasaasta ay burcadbadeedu ku fureen markabka ay sabab u noqotay in uu halaabo markabka Leopard oo ah markab laga leeyahay Denmark si kastaba dhawaan ayaa kooxaha burcadbadeeda Soomaalida waxa ay sii daayeen Juan Alfonso Ray iyo Jose Alfonso Garcia oo ah laba muwaadin oo u dhashay dalka Spain kadib markii ay ka qaateen lacag madax furasho ah waxaana Juan Alfonso Ray iyo Jose Alfonso Garcia ay burcadbadeeda ku haysteen dhulka miyiga ah ee gobolka Mudug muddo ka badan 7 bil Axmed Qaliib Geedi telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Gaalkacyo magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdalna waxaa ka dhacay dibadbax rabshado wata oo ay sameeyeen dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal dhalinyaradaas ayaa waxa ay ka cabanayeen xarig loo geystay mid kamid ah siyaasiyiinta sida weyn looga yaqaan magaaladaasi Boorame oo lagu magacaabo Maxamed Jaamac Abgaal oo haatan isagu ku xiran saldhiga magaalada Boorame Cabdi Fataax Ahmed ayaa waxa warbixintan nooga soo diray magaalada Boorame bartamaha magaalada Boorama waxaa maanta iyo xalay ka kala dhacay dibadbaxyo rabshado watay oo ay sameynayeen dhalinyaro ka carooday xarig xalay Boorama loogu geystay siyaasiga Maxamed Jaamac Abgaal oo la sheegay in loo xiray hadallo uu dhowaan ka jeediyay warbaahinta kadib dilkii tuulada Seemaal ee gobolkan Awdal loogu geystay 3 qof oo xoolo dhaqato ah dhalinyaradan careysan ayaa isugu soo baxay wadada laamiga ah ee bartamaha Boorama waxayna dhagaxaan ku shiidayeen ciidamada booliska iyo xarunta saldhiga dhexe ee magaaladan Boorama iyadoo ay saas cirka ugu ridayeen ciidamada booliska iyo kuwa militariga ilaa iminka ma jirto qasaare buuran oo dibadbaxyadan ka dhashay marka laga reebo dhaawacyo yaryar oo dhagaxaantii ay dhalinyaradan tuurayeen ay ka soo gaadhay qaar ka mid ah ciidamada booliska iyo kuwa militariga ee ku hoolanaa joojinta dibadbaxyadaasi iyadoo mas'uuliyiinta dawladda ee heer gobol iyo heer degmo ay ka gaabsadeen inay la hadlaan saxaafadda waxayna sheegeen inay hadli doonaan marka la soo gabagabeeyo howlgallada ay ku joojinayaan dibadbaxyadaasi Cabdi Fataax Ahmed Somali Channel magaalada Boorama gudoomiyaha urur siyaasadeedka Rays ee Somaliland ayaa waxa uu gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gudoomiyaha ayaa halkaasi waxa si weyn ugu soo dhaweeyay dadweyne iyagu taageersan
urur siyaasadeedka rays ee dhowaan looga dhawaaqay Somaliland isagoo gudoomiyuhu meel fagaara uu kala hadlay kumanaan dad oo isugu soo baxay soo dhaweyntiisa. waxaa warbixintan ka soo diray Burco Maxamed Cawad Maxamed. gudoomiyaha urur siyaasadeedka dhalinyarada iyo shaqaalaha ee rays xasan maxamed cali xasan gaafaadhi iyo wafdi ballaadhan oo hogaaminayo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Burco iyadoo duleedka deegaanka Qoyta oo 18 kiiloomitir dhanka waqooyi galbeed kaga toosan magaalada Burco ay kaga hortageen boqolaal dadweynaha iyo gaadiid aad u tiro badan kuwaas oo u soo galbiyay dhanka magaalada Burco. waxaana gudoomiyaha urur siyaasadeedkani rays xasan maxamed cali uu goob fagaaraha kala hadlay boqolaal ka tirsan taageerayaashiisa isla markaasna uga jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay ugu horreynba uga mahad celiyay soo dhaweyntani ballaadhan ee uu sameeyeen waxaanu gudoomiyuhu sheegay in nabadgelyadu ay tahay ay ku dhisan tahay Somaliland isla markaasna uu urur siyaasadeedkooda rays ka xun yahay dhibaatadii fasha xumeed ee ka dhacday deegaanka Seemaal xukuumadda Somaliland ugu baaqaya in arrintani ay gacan bira wax kaga qabato sharcigana hor keento dadkii falkani arxan darada ka dambeeyay. waxaanu gudoomiyuhu sidoo kale hambaliyay hawlihii geedi socodka nabadeed ee laga gaadhay deegaamada Kalshaale iyo Ceerigaabo. ka hore waxaan gudoomiyaha aynu ku fadhinaa waa nabadda ayaynu gaarnahay dadka maanta nimaan haysan baana garanaya waxaan dadka kula talinaya nabaddaa in mar walba la ilaaliyo oo la adkaysto ayaan kula talinaya. waxaan baan u jeedinaya dadka ku nool caaga Ceel Bardaale waxaan aad iyo aad uga xunahay shilkii ka dhacay Ceel Bardaale iyo dilkii ka dhacay baan aad uga xunahay waxyaabaha nabadda dhaawacaya. waxaanu leenahay wixii geystayna in la abaalmariyo wixii loo geystayna inay samir iyo dulqaad inay ka qaataan waan ognahay dhibaato adag weeyaan aad u xun waxaanu jecelnahay waxa la yidhi ilaahay wixii uu keenaba wax ka daran buu hayaa. waxaanu leenahay iyadoo waxaasu dhaceen haddana samir iyo dulqaad in laga yeesho ayaanu rajaynaynay oo ku baaqayna. xukuumadda waxaan leenahay shaqaaqada Ceel Bardaale waxaad moodaa waxaan dhammaystirnayn inay jirto qabiilo ahi sidii qabiilada loo dhammaystiri lahaa oo nabad waartaa lagu kala bogsado loo heli lahaa waxa inay dowladdu xalaalay waxay cudud leedahay inay saarto oo dowladdan u soo jeedinayno. waxaa kaloo uu gudoomiyaha urur siyaasadeedkan ka hadlay in magaalada Burco ay tahay goobtii laga dhawaaqay Somaliland isla markaana ay si weyn uga filayaan in urur siyaasadeedkoodani ay taageero ballaadhan u fidiyaan. Burco waa magaalo madaxdii labaad waa meeshii nabadda Somaliland laga aasaasay waa meeshii Somaliland laga aasaasay waa meeshii xisbiga kulmiya maanta talada haya laxaadkiisa iyo taageeradiisa ugu ballaaran ay tihiin. waxaanu rajaynaynaa inaanay maanta la tala seedi doonin. waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay Suldaan Cabdiraxmaan Maxamed Suldaan Cabdiraxmaan Riwaaye Mujaahid Carab Ducaale iyo qaar ka tirsan garabada dhalinyarada iyo haweenka ee urur siyaasadeedkani rays kuwaas oo dhammaantoodba soo dhaweeyay mas'uuliyiinta urur siyaasadeedkani ee maanta booqashada ku soo gaadhay magaalada Burco. إلهي وحن قرنا تيريا إناد صوت واتام الرعو يا باش باش إلهي وحن قرنا تيريا إلي دوضح سبقاش وسويدي كيان ودوريدي. waxaanu gudoomiyaha urur siyaasadeedkani xasan maxamed cali xasan gaafaadhi oo halkaasi xadhigga kaga jaray xarunta cusub ee urur siyaasadeedkani uu ku yeelan doono magaalada Burco. ugu dambeyntiina soo dhaweyntani ballaadhan ee loo sameeyay gudoomiyaha urur siyaasadeedka rays mudane xasan maxamed cali xasan gaafaadhi ayaa iyadun ka mid noqonaysa soo dhaweyntii ugu ballaadhneed ee loo sameeyo urur siyaasadeedyada haatani ka hana qaaday Somaliland taasi oo qayb ka ah xafiiltanka iyo tartanka ay haatani ururada siyaasaddu ugu jiraan kasbashada codka shacbiga Somaliland. Maxamed Cawad Maxamed, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, Burco. jaamacadda Maakhir ayaa waxaa si weyn dhismaheedu uga soconaya magaalada Baran ee gobolkaasi Sanaag. jaamacadda ayaa dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi Baran waxay xoogooda iyo maalkoodaba uga qayb qaadanayaan dhismaha jaamacaddaasi. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Baran nooga soo diray wariyahayaga halkaasi nooga soo warama Cabdirasaaq Cali Balbal. waxaa muddooyinkan ka socday gobolka Sanaag horumar aad u ballaaran gaar ahaan wuxuu ka socday xarunta gobolkaasi magaalada Baran
waxaa baryahan dadka ku dhaqan deegaanka si hagar la'aan ah ugu ololeynayeen jaamacadda maakhir oo iyadu sanadkii hore laga yegleelay magaalada baran jaamacadda maakhir oo hadda furnay muddo 2 sannadood ah ayaa waxaa jaamacaddu degan tahay xarunta hooyooyinka Al-Nasr waxaa muddooyinkan dambe la waday sidii jaamacaddu u heli lahayd dhismo weyn oo u gaara waxaana loo qabtay jabadhan dherarkeedu 2 kiiloomitir balacna 2 kiiloomitir waxaa saaka subaxnimadii lagu dareeray dhanka iyo goobtii loogu talagalay in laga dhiso jaamacadda waxaana dadweynaha dhammaantood ka qayb qaadanayeen dhismaha socday inay ka shaqeeyaan dadkaas oo isugu jiray dhalinyaro haween rag roole iyo carruurba dadka wada shaqaynayay ayaa waxaa ka baxayay dadkooda sawaxan iyo qayla tani waxay ahayd kolkii ugu horreeyey ee dadka reer baramood sidan isugu soo baxaan oo dhismo sidan oo kale ah oo la wada leeyahay uga shaqeeyaan haddaba dadweynaha ayaa waxay soo kalaheen xilli aroornimo ah saacaddu markay ahayd 5tii aroornimo inkastoo goobta loo sii diyaariyey oo maalmo hore laga sii shaqeeyey in loo diyaariyo dadweynuhu inay ka qayb qaadan doonaan kuuliga waxaana lagu shaqaynayay iskaa wax u qabso maalintan oo ay ahayd maalin jimco ah oo dadku wada fasax yihiin ayaa waxaa dhismaha hagayay injineerada magaalada iyo wastaadinta laakiin runtii sidii la filayay ayaa ka dhacday xoogga dadka oo laga faa'iidaysto wuxuu leeyahay miro dhal weyn shaqada oo socotay ayaanu mikrofoonka dhex qaadnay dadweynihii shaqaynayay ugu horreyntii wax ka weydiin qaar ka mid macallimiinta How are you, teacher? How are you, teachers? Very fine. Very fine. Yes. Me, Abdusam Ali Belbel, media of Somali channel. I want to ask you, what do you feel today? Today I feel very encouraged because I can see the Somalis are doing something very nice for themselves. They are building their university. They have come here early in the morning, doing a lot of good work. This is very nice. What time they came here? I think they came as early as 5 o'clock. Yeah, today I was carrying stones. We have carried sand, cement, and everything. And I want to tell you, my friends here, there is something very nice. Okay, thanks. فرحت بندريميا نقول عسب بندريميا وحن حسوسنا يا كون سجال بقول تضوات يصدح دي وقتي فيها أمد الذي سايي ولقى شقينا يي ويسكا حقوق بس لقى شقينا يي حفيز قول وده يا حفيز سياسات ليس سوى خصبايي ما توعى أركامي ده ليس سوى خصبين ودتك الشعب كعدونا والرئيس كين وحقوق بصدق waxaan idin sheegayaa kaliya haddii la yimaado 4 jimci kaliya 4 jimci qura inta haddii la yimaado jiingada kaliya inay noo haraysa laakiin aanu israacsiinayna insha Allah dayrkeeda iyo maqaasiinteeda oo go'an hawsha iyada waxaan idin leeyahay kaliya horay u socoto yeenan halkeeda kaga tagin yeenan dib uga bixin daliyo dibadba himiladeennuna insha Allah kor bay ahaanaysaa hoos ahaan mayso waa idin ducaynaya ismaha waa ka soo xajiyay hadal u noqo laakiin waxay dirsaday caadifada iyo muuqata wadaninimada ay dirsatay iga hadlinaysa waxaan inoogu ducaynayaa in ilaaha qufuur raxiimka ay guushayna siiyo ilaahay inuu xaqayna waafajiyo ilaaha qaadirka inuu markii shaqadu soo gabagabowday ayaa waxaa goobta ka hadlay waxgarad aqoon-yahano saraakiil waxaana ka mid ahaa ugaas Ibrahim Cali Maakhari korneel indhayare aqoon-yahan Maxamed Saaxi Maxamuud waxaa kaloo ka hadlay madaxweynaha dowladda Maakhir Jibriil Cali Salaad oo isagu aad iyo aad ugu hambaliyay dadweynaha reer Barmood sidoo kale waxaa ka hadashay madasha kaaha Suldaan Maxamuud Cali Shire oo iyadu ka mid ah qurba joogta deegaanka u dhalatay waxaana hadalkeedii ka mid ahaa maanta anigoo jooga jaamacaddii oo shaahid u ah dadkii lalahaa wax ma qabsanayo inay wax qabsadeen oo wax fiican qabsadeen haddaynu qurba joogta nahay idinkuna waa daawan annaguna markhaanti baanu ka nahay sidaasoo loo dadaalayo ayaa dadkii diyaar u yahay dadkeenni dibaddana awalba diyaar baynu ahayn ilaahay waxaan ka rajaynayaa
isku soo wada duubo dadweynaha reer Barmood ayaa ballan qaaday inay maalin walba oo Jimco ah sidan uga shaqeynayaan jaamacadda Maakhir. Cabdirasaaq Cali Belbel, telefishinka caalamiga Somali Channel, magaalada Baran. wasiirro ka tirsan xukuumadda Somaliland, taliyaha ciidanka militariga Somaliland iyo waliba taliyaha booliska ayaa waxa ay kulan la qaateen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Gabiley. kulankaasi ayaa waxa uu ahaa mid ay uga arrinsanayeen dilkii foosha xumaa ee dhawaan ka dhacay deegaanka Saameel. waxa warbixinta naga soo diray magaalada Gabiley wariyaha iyaga halkaasi naga soo warama Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkaase. wasiirro ka tirsan xukuumadda Somaliland iyo labada taliye ciidan ee qaranka iyo booliska ayaa gelinkii hore maanta kulan la yeeshay hogaamiye dhaqameedyada reer Gabiley. xubnahan oo ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Nuur Caraale iyo wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Cabdilaahi Cumar iyo taliyaha ciidanka qaranka Somaliland General Nuux Tani iyo waliba taliyaha ciidanka booliska Somaliland General Maxamed Saqadhi Dubad ayaa kulankaasi ay la yeesheen cuqaasha iyo waliba waxgaradka reer Gabiley oo ka dhacay xafiiska barasaabka gobolka Gabiley oo ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin ayaa ujeedadiisa lagu sheegay mid lagaga hadlayo dilkii ka dhacay deegaanka Seemaal. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland oo kadib saxaafadda la hadlay ayaa uga warramay waxyaabihii ay ka wada hadleen hogaamiye dhaqameedyada waxaanu sheegay in kulankan ay la yeesheen cuqaasha Gabiley ahaa mid lagaga wada hadlayo dilkii ka dhacay deegaanka Ceer Bardaale taasi oo wasiirku sheegay in gacan ku dhiglayaashii falka xun geystay si degdeg ah loo soo qaban doono. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Maxamed Cabdilaahi waxa hadaladiisii ka maanta waxaanu halkan u nimid waxay la xiriirtaa dhacdadii dhawaan ka dhacday deegaanka Ceer Bardaale ee dhimashada ahaa iyo dhibaatada badanba waxaananu halkan u nimid in aan la hadalno cuqaasha salaadiinta mas'uuliyiinta iyo dadweynaha gobolka Gabiley ku nool oo arrintaas sidii loo soo aftari lahaa. Cabdirasaaq Axmed Hayaan, telefishinka caalamiga Somali Channel, Gabiley. beel ka mid ah beelaha dega gobolka Awdal ayaa waxaa shir looga hadlayo dhinaca dhaqanka uga furmay deegaanka loo yaqaano magaalo Qalooc oo ka tirsan gobolkaasi Awdal. shirkaasi ayaa waxa uu socon doonaa muddo 5 casho ah waxaana ka qayb qaadanaya dhinacyada dhaqanka ee beeshaasi. waxa warbixinta naga soo diray magaalada Boorame Cabdifitaax Axmed. deegaanka magaalo Qalooc oo hoos tagta magaalo Cad ayaa waxaa ka furmay shir muddo 5 cisho ah socon doona kaasoo u furmay beel ka mid ah beelaha dega gobolka Awdal. shirkan oo ah shir ay beeshan kaga tashan doonto aayaheeda ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgarad culumaadiin aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan oo beeshaasi ka kooban tahay. madashan waxaa ka hadlay waxgarad kala duwan kuwaasoo marka la isku soo aruuriyo hadaladooda ay hoosta ka xariiqayeen inuu shirkan yahay shir dhaqan isla markaana uusan ahayn shir siyaasadeed ayna beeshan ka tashanayso aayaheeda. waxaana qaarkood oo madashan ka hadlay hadaladooda ka mid ahaa haddii aan idiin soo koobo ujeedooyinka ugu muhiimsan ee aynu shirkan u qabanay waxaa ka mid ah kow in beesha loo sameeyo hoggaan midaysan adag laguna aamini karo arrimaha reerka kuna hogaamiya sinaan iyo cadaalad raadiyana wixii beesha ka maqan. waa qodobka koowaad ujeedada ugu weyn ee shirka loo qabtay waa kow. ujeedada labaad ee shirkan loo qabtay ee la isugu yimid waxa weeye in beesha loo sameeyo xeer dhaqameed mid ah oo ka dhexeeya beesha. xeer dhaqameed mid ah waad ogtihiin hadduu reerku xeerar kala duwan yeesho wuxuu noqonayaa qabiilooyin kala duwan. sidaa daraaddeed haddaan doonayna inaan midnimo samayno reerka ah waa inaan xeer mid ah oo lagu dhaqmo oo xeer dhaqan ah aan samayno. qodobka saddexaad waxa weeye dhowrista iyo ilaalinta deegaanka beeshu leedahay. beeshu dhul bay leedahay, deegaan bay leedahay, wuxuu u baahan yahay deegaankaasi in dayaca laga ilaaliyo. haddii deegaanka dayaca laga ilaalin waayana waxaa hoos u dhacaysa noloshii bulshada ayaa hoos u dhacay. ujeeddada afraad ee shirkan loo qabtay waxaa hagaajinta xidhiirka iyo wadatashiga beelaha ee aan wada wadaagta nahay ama aan dhalasho wadaagno ama aan Soomaalilandnimo wadaagno. waa ujeeddada afraad ee loo qabtay waxa weeyaan in la adkeeyo xiriirka iyo wadatashiga beelaha aan deriska xaaladaha aadaduhu dhammaantood soo mareen miyaanad is oo dhan marnaba makaankeed kaga jirtaa maqaamkaad leedahiyo adoo maskabkaagu yahay
isdhiricaad seexatiyo maqaar kuugogan noqdiyo mudhaha duurkood cuntiyo mulaaxaad diiratiyo xabagad gudguudsatiyo maraad neef qalatidood haddana uusmiiratiyo kuwaasiyo qaar la mid ah adoo mugdigii jaaliga sidii u dhex maaxayoon cilmigu marti kuugu hoyeen adoo masnacaagu yahay hangool kadh maroora oon maxaa dhan samaysan weli adoo muurkaagu yahay hatiga dhabarkii muxoo dameermaal buu noqday miciisu orgina ka tahay kismaayaa lagu rartaa waa in aynaan noqonin dad fidna u shira fidno u taliya fidno abuura inaynaan noqon inaynu noqonno dad islaax taliya oo shirkan noqdo sida magaca loogu bixiye cawaale daweeye meelaha dib ka jirto oo dhan insha allah magaca ay shirka u bixiyeen baan aad uga mabsuuday cawaale waa wixii siyaasadda iska iloobo dantiina ka tashada dhalinyarta qaybtaan ugu weynahay annagu 2008 ay isku tagaan oo ay soo saaraan urur dhalinyara oo ay ku midaysan yihiin dhalinyarta reer Faarax Nuur oo dhan shirku wuu furan yahay shirkii wuu idin furan yahay kulley anigu hawsha intaasaan ku lahaa intiina waa cabdifataax axmed Somali Channel magaalada Boorama qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay si weyn u cambaareeyeen dil dhawaan 3 qof loogu geystay deegaanka Saameel oo ka tirsan gobolkaasi Awdal cabdifataax axmed ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Boorama Suldaan Abshir Maxamed Ducaale oo kamid ah salaadiinta goboladan Awdal Salal iyo Gabiley iyo waxgarad kale ayaa maanta waxay shir jaraa'id ku qabteen magaaladan Boorama waxayna waxgaradkan shirkoodan jaraa'id ku cambaarayeen dilkii dhawaan tuulada Seemaal oo ka tirsan gobolkan Awdal loogu geystay 3 qof oo kamid ah xoolo dhaqatada deegaankaasi ku dhaqan waxgaradkan waxay u tacsiyeeyeen eheladii iyo qaraabadii ay dadkaasi ka baxeen waxaana qaarkood hadaladooda kamid ahaa falka foosha xun ayaa la wadaagaa dadka nadiifta ee Soomaaliland siday u cambaareeyeen ayaa la wadaagaa falka foosha xun ee dhaqan u ahayn dadka Soomaaliyeed nin nabadii caana ku seexdo reerkiisii seexday waxa weeyaan dhaqanku waxa weey ninka hurdo lagu dilay loogo la magmaaha la xusuus maaha waa waxaan dhaqan inoo ahayn weeyaan waxa weeyaan ninka safarka ilaahay baa salaadiisa ka khafiifiyay soonkana maalmo kale aad soomi doontaa baa la yidhi ilaahay baa yidhi waajibaadkiisa halkaa waxaa ku batay in ama safar lagu laayo ama dad iska hurdo nabad iyo caana qaba lagu laayo ninka janaka ah ee Nuux Ismaaciil taani la yiraahdo xalay telefishanku ka hadlay uma hadal sidii nin mas'uul qaran baan ahay buu mas'uul qaran sidaa uma hadlo dad xandanaya oo wuxuugii oo dadkoogii hurdo lagu laayay oo ooyaya haddaad mas'uul qaran xalay sidaa uguma jawaabteen ma Sultaan Saleebaan bad kelmadda xalay oran mas'uul qaran taatay meeyi waxa tahay kii Allah u naxariistay marxuum cigaalnayn markaad madaxda ka hayd warsay amalihida ka soo bax markuu ku 95kii waadigii baki iyo ruqi ku soo duulay tolkaana waadigii jabiyeed ogeyd dagaalkii uu baad ku jirtaa raggii ni doorka ahaa ee wadada lagu laayay waxa waadigii meydkii ka soo dhaxqaday raggii iska jooga sidii waagii hore dilka halka ka dhacay dhibaatada meesha ka abuuran in muddaaba way socotay dhibaatadaasi aagaas degmada Gabiley waa meeshii ay dhibaatadii ugu horeysay ee yani dagaalada sokeeye ee aafeeyay Awdal 88kii ilaa waqtiga waa meesha ay dhibaatadaas ka soo burqanayso cabdifataax axmed Somali Channel magaalada Boorama tartanka ayaa waxa uu galay marxalad ka gadisan marxaladii hore iyadoo ciyaaruhuna sidii hore ay ka sii adkaadeen maxamed Caawad Maxamed ayaan u deenayaa natiijada ciyaaraha iyo waliba ciyaarihii ugu dambeeyay inuu noo faahfaahiyo
iyadoo weli si habsami ah uga sii socdo garoonka Lamse Stadium ee magaalada Burco tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland ayaa galabta ciyaaraha u xiiso badan ee ay dhex martay gobolada Sool iyo Gabiley taasi oo qayb ka ahayd soo dhamaadka wareegii labaad ee tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland waxaana ciyaartan oo ahayd mid aad u xiiso badan isla markaasna ay labada gobolba soo bandhigeen ciyaaraha aad u qurux badan ay guushu ku raacday gobolka Sool kadib markii qaybtii dambe ee ciyaartaasi uu gool u dhaliyay laacibka Axmed oo sitay lambarka 7 taasi oo suurtay galishay in xulka gobolka Sool uu ku hantiyo 3 dhibcood isla markaasna haatan uu yeelanayo 4 dhibcood waxaana groupka ay ka tirsan yihiin gobolada Sool iyo Gabiley haatan si rasmi ah u hogaaminaya gobolka Awdal oo leh isagu 4 dhibcood halka sidoo kalena gobolka Sool uu leeyahay 4 dhibcood iyadoo gobolada Gabiley iyo Berberana ay leeyihiin min hal dhibic waxaana groupkan uu yahay mid ay aad isugu dhibcadhow yihiin isla markaana la filayo inay ku kala bixi doonaan wareegga saddexaad ee dhex mari doona kooxahani waxaana markii ciyaartaasi ay soo gabagabowday kadib ciyaaryahanada gobolka Sool ay ka muuqatay farxad iyo reyn badani ay sheegeen inay ku hanweyn yihiin inay ku guuleysan doonaan tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland isla markaana uu gobolka Sool yahay mid haatan muujinaya dadaal iyo firfircooni uu ku hanan karo koobka ugu dambeyntiina ciyaartani galabta dhex martay gobolada Sool iyo Gabiley ayaa iyadoo ahayd mid aad u xiiso badan isla markaasna si nabadgelyo ah ku soo gabagabowday iyadoo geesta kalena ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ay sii xoojiyeen hawlaha sugidda ammaanka ee garoonka taasi oo intii ciyaartu socotay aan wax rabshad ah halkaasi ka dhicin ugu dambeyntiina iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay jireen warar la isla dhex marayo oo sheegaya in ciyaaryahanada gobolka Sool ay u ciyaarayaan ciyaaryahano ka soo jeeda gobolada koonfureed Soomaaliya ayaa tababaraha gobolka Sool oo arintaasi ku tilmaamay mid waxba kama jiraan isla markaasna lagu dhaleecaynayo xulka gobolka Sool oo isagu haatan muujiyay firfircooni iyo dadaal dheeraada magacaaga dareenkaaga coachnimada magacayga la yiraahdaa Cabdiqaadir Shaah Saalax waxaana tababaraha ciyaartooyda gobolka Sool ku badactay waxaan rajaynaynaa guul aad iyo aad wanaagsan maanta waxay ahayd guusha ugu horeysay insha Allah guusheeda socotana kulay ay noqoto mid kala jooga waxaan taageerayaasha gobolka Sool dhammaan dal iyo dibadda waxaan u sheegaa ruuxatii in gobolkoodu kubadiisu maanta ay tahay kubadda ugu sarreysa gobolada Somaliland waxa kale oo sheegaya inaan maanta meeshan ku marayo ciyaartooyda ugu yareed marka loo eego gobolada gobolka loo eego ciyaartooyda ugu yareed ee gobolada maanta ciyaaraya ruuxatii aad baan uga xumahay بريهم بباقي صباح يوم تدوينها وحنت تاجر شيء صول يا Soomaaliya إن شاء الله عاوي هم أنت محل نقل قلت يا ترى حين كستي والبتشوق رسالة والبتشوق رسالة إنجليزي وشتى عيارسي أما غير مراكي تشوف كحالية ولا مهدي هدي مربى الله يا ترى جولك ما جولك على قصك حسين حنوش يعني هين يا ترى اللي أنا برشنت أنا كنت جولك صول ولورني ما دام ما نعمل ليه Soomaaliya الله غيرني وعيار ترى لبدي كلية تضبطي كوب سنة ودي مسألة قتلهم دولها حتى قلبات محمد عود محمد تلفزيون عالمي Somali Channel برعو warkii oo daawadayaal kala socoteen telefishinka Somali Channel studio magaalada Nairobi waa naga intaas tan inta ku kulmi doona warkan warka xiga waa dhamaantayo idin la sidaas nabadgelyo wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh